بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم marka ugu horeysa waxaan salaamayaa saxaafadda madaxa bannaan waxa kale oo aan salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan meel kasta oo ay adduunyada ka taagan ka joogaan ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta kadib waxa aan maanta halkan u soo fariistay una qabtay shirkaygan jaraa'id oo igu kalifay in aan ka hadlo dhowr arrimood marka ugu horeysa waxaan u hambalyeeynayaa gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha baarlamaanka ahna madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mustaqbalka Mr. Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdullaahi Ciro oo aan ugu hambalyeynayo muxuu hayday hambalyana leeyahay guusha dhaxalgalka ah ee uu ka gaaray xisbiga wadani safaradii uu kala baxay Gabiley Boorame Berbera iyo Burco oo maanta ay taaganahay intaba waxaan leeyahay xisbiga wadani hambalyo waxaana hambalyada u dirayaa dhammaan hoggaanka sare ee xisbiga wadani gudida fulinta gudida golaha dhexe taageerayaasha iyo dhammaan inta samaha jecel iyo inta isbedel doonka jecel ee jamhuuriyadda Somaliland oo dhan ayaan leeyahay hambalyo qodobkayga labaad waxa kale oo aan halkan ka mid ah maanta waxaan aad iyo aad u cambaaraynayaa saxaafadda madaxa bannaan ee la caburiyay sida wariyaashii lagu xiray Gabiley namadii lagu xiray Garadag ee bila xukunka iyagoo ah ama maxkamadii geele ee aan maqli jirnay oo oran jiray maxkamadda badbaadada qaranka la oran jiray siyaab samaystay badbaadada qaranna ma ahayn dubinta qaranka ay ahayd tiyo kale la samaystay oo bari saabkii gobolka meesha la yiraahdo gobolka Sanaag bari saabkeedii inta uu halka ka soo baxay uu yimi inamadii yaryaraa ee yiri xisbiga wadani baan ka tirsanahay Garadag ee halka ku maxkamadeeyay sidii geelle oo kale aad baan uga xunnahay waxaan leenahay falkaasi waa fal aad u xun dawladuna waxaan leenahay si dhaqso ah ha uga soo noqoto arrinka ummadda ay jarahabaabinayso ee dhalinyarada ay jarahabaabinaysana waxaan leeyahay si degdeg ah ha u soo deyso xorriyadoodana ha siiso inamada yaryar haddii yiraahdaan kulmiye waanu ka baxno wadani baanu galnay dee may samaynin ceeb may samaynin kulmiyana waa xisbi qaran wadanina waa xisbi qaran qof walba ku doonuu galaya shalay markay kulmiye ahaayeen cidimay ceebaysanin maanta se laakiin markay wadani noqdeen in la ceebaysta maaha saxaafadda madaxa bannaan ragga la xirxiray dhalinyarada lagu xirxiray Gabileyna iyo dhalinyarada kale ee lagu xirxiray Somaliland oo dhan saxaafaddaana waxa leeyahay sida ugu dhaqsaha badan leh loo soo daayo oo faraha looga qaado dawladdu ha sii deyso shalay toole markay xisbiga udub la dagaalamayay kulmiye la dagaalamay war ninkii ku soo taageeray saxaafaddu aha ninka halka ku soo gaarsiina saxaafadda ay ahaayeen maanta hadaba kulmiye waxa ku ceeba saxaafaddii shalay taageeraysay inay maanta ay xirxiraan aad baanan uga xunnahay haddii aanu nahay annaguna golaha dhexe xisbiga wadani aad iyo aad baan uga xunnahay waana arrin aad u qaab daran mana wanaagsana in dimuqraadiyadda Somaliland lagu weeqo in saxaafadda la xirxiro aad iyo aad baan uga xumahay qodobka kale waxa aan maanta aniga igubaya reer Somaliland aan gubaynin baan anigu doonayaa inaan halka ka sheego waxa weeyaan waxa aan gaar ahaan ula hadlayaa shacabka reer Somaliland ee samaha jecel ee wanaaga jecel ee xumaanta ka dhidhiya ayaan aad ula hadlayaa waliba waxaan la sii hadlayaa madax dhaqameedka reer Somaliland waxa kale oo aan la hadlayaa aqoon-yahanka iyo waxgaradka reer Somaliland waxa kale oo aan la hadlayaa dhammaan hooyooyinka reer Somaliland waxa kale oo aan la hadlayaa dhammaan dhalinyarada reer Somaliland waxa aan doonayaa halkan oo waliba madax dhaqameedka raba inay dhigahooda ku dhacaan waxaan weydiiyay goorma ayay Somaliland noqotay muxuu ahaa magac ama hadal
ama hooyo magacii ama hooyo sorry ama hooyo in la isku caayo goormay noqotay maxaase reer Somaliland haddii ay arkeen xumaanta cayda intaa la eeg ee shakhsi ka mid ah xukuumadda Somaliland uu sameeyay oo uu caayay shakhsiyaad ka mid ah madaxda qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland maxaa xaal looga bixin waayay maxaase isaga loo weydiin waayay inuu xaal ka bixiyo arrinka taasoo ahayd waan idin saafaya run waxaan malaynayaa in badan sugaysan eriga waan idin saafaya waxa weeyaan wasiir qaran ayaa isagoo la dhan jooga halkan ka hanjabay mahmaahuna ku mahmaahay uu leeyahay nin ayaa wuxuu qabay laba islaamood oo ula lagdamo labada islaamood ula lagdama waayo ninku se waayo su'aasha meesha taala miyaanay gaf ahayn in hooyooyin arrimahood lagu soo qaado oo la laba islaamood miyaanay gaf ahayn in gudoomiye nin dhan oo wasiiri niman dhan oo oo matalaya qaran dhan matalaya oo baarlamaanka ka tirsan inuu ku sheego laba islaamood oo uu qabo oo uu niqabay goormayse hay'adii baaba'day oo ay xumaanta soo kordhay waa maxay si ereygaasi maxaase ilaa iyo maalintii hadalkaasi dhacay ilaa iyo hadda cid hadal haysa ama cid ka dhiidhiday ma jirto xaal looga bixin waayay maxaase wasiirka madaxtooyada loo weydiin waayay labada islaamood ee uu ninku qabay uu la lagdamayay kuwabay ahaayeen miyaanay ahayn dhafarjab waayo markaa waxa halkaa ka socotay baarlamaanka gudihiisa oo ay xukuumaddu dab ay shidaysay bay halkaa ka socday oo ay isku shidaysay madaxda baarlamaanka ay ku shidaysay anagu markaa daba adduunyada dhan waa la fahmayaa micnaheeda in la lahaa gudoomiyaha baarlamaankana uu ka dhigayay ninkii labadii dumar ahaa uu qabayna uu ka dhigayay labada gudoomiye ku xigeen taas miyaanay ceeb meesha taala ahayn ceeb si reer Somaliland oo dhan dul taala ahayn maxay reer Somaliland ugu dhigi waayeen ereyga noocaas oo kala miyaanay dhibaato ku ahayn ummadan reer Somaliland waxyaalaha qaar kood inay dhagahooda ku dhacaan se markay maanta ku dhaceen dhagaheena inaga oo halkan joogna warbarjiilkeena dambana markay gaadha arrintaasi ka warrama aad iyo aad baan ugu xumahay maanta si waxaan odhanayaa madax dhaqameedka reer Somaliland arrintaasi waa inay meel cad iyo mowqif cad iska soo taagaan wabillahi tawfiiq